masalada labaad waxa weeyaan nicmadii ayaynu niqmo u aragnay. waa laba erayo af carabiya. nicma waa barwaaqo, waa shaygii lagu barwaaqaysanayey oo loo arkay inuu yahay dhib iyo kadeed. maxaan uga jeedaa mas'alat alfiraaq. firaaqa ma taqaanaa? jaaniska, waqtiga. ninka dhallinyaraday waxay ahayd markuu waqti helo inuu ka faa'iidaysto, nimco ilaahay siiye u arko inuu wakti isbeera oo aanu waxba ku qabanin inuu haysto inay nimco u aragto. laakiin haddii waktigu xanuun kugu noqdo ka waran, aad tidhaha iskuulkiina waa fasax, wax allaaliyo waxaan qabta habeenkaa caawaa garan maayo, discotiga ma qabanaa mise filimka ma qabanaa, xaggaynu waktiga kusoo dillaa. marka aan kubad iska daawano, tv-ga inoo shid, maantao dhan uu tv hoos galgasho unoo kolle kaa ka rog, 200 janal kolle kaa ka rog, meel wiil yari boodboodayo oo heesayo, ama mid caag loo buufiyo kubad eryayo, ama wuxuun inuu eego. nicmadii uu haystay ayaa qofkii ula muuqatay dhib. waktigii nicmu ahaa, nicmo aada wax ku barato, aada ku shaqaysato, aada wax ku qabsato, aada dad ku noqoto, aada ku korto. hadday iyadu dhib kugu noqoto, ay noqoto dhibtii laga takhallusayey, waarsaan u gallaa, seexo, diinahaysa saar, kolbaysa sii dad. wuxuu rabaa inuu 20 saacadood hurdo, wakti badan inuu hurdaa buu doonaya, waayo waa fasax buu ku leeyahy. wuxuu rabaa waktiga meeluu ku dilo, inuu soo boodboodo meelaha tagoo ku dilo. war waxaana aad dilaysaa waa cimrigaagii. hadda cimrigii kuu tirsanaa, imika haddii lagu idhaha naftaa lagaa qabto waxaad ohan lahay ilaah waxa laygu daro, socanka maaha, ilaah waxa laygu daro. markii lagugu darayna waxaad ku leedahay xaggaanu qabanaa. markii lagugu daray iminka haddii la idhaha nafta halaydinka wada qabto wada argagixi lahayd. qof oo anigu inugu filan noolaadayaan iska dhinto waa yaryihi. hadii la idhaha nafta halaydinka qabto may baynu odhan lahayn, ilaahay wuxuuna inoo saa'idiyo. laakiin marka laguu saayidiyey ee in lagugu daray, haddaad waxaad ku qabataba garan weydo oo intaad soo toostan aad tidhahda niya waktigii baa batay maxaynu ku dillaa, inawada meelaha iska soo warwareegnay, kubad soo cayaar aan waxaan soo samayno, entertainment iyo music iyo wax lagu dilo la raadiyo, hiya almashkila. idan dhibaatadan waxaa labaad ee aan sawirayaa, dhibaatadii koowaad waxaynu nihi waa mas-uuliyaddii aynan dareemin. dhibaatada labaad ee aan sawiraya waxa weeyaan waqtigii nimcada ahaa, jaaniskii ilaahayna siiyey ee ina nooleeyey ee aynu haysanay ayaa inoola muuqday dhib, oo aynu rabnaa inaynu ka takhallusno, isagii baynu u raadinaynaa wax lagu rido. waa mashkilad iyana xal u baahan. xalku waxa weeyaan inaad programmed noqoto, qofku jadwal nololeed inuu leeyahay, wakti uu wax akhriyo, wakti uu seexdo, wakti uu soo jeedo, wakti uu wax barto, wakti uu wax baadho, inaad noloshaadu jadwal leedahay. inaad isku daydo hurdo intaad yarayn karta inaad yarayso, inaad isku daydo entertainment waxa waktiga lagu lumiyo intaad yarayn karta inaad yarayso, inuu kaa noqdo un mar aad wixii kaloo dhan caajistay inaad ku soo yaro baraarugto un. yani haddaan imika maanta o dhan wax akhriyo waxa laga yaabaa 3 saacadood markaan maraya inaan daalo. waxaan u baahnay nus saacaan iska yaro nasto, fadhiyo oo iska shaashaayo, saaxiibkii la sheekaysto oo warramo. laakiin nus saacani wuxuu isiinayaa inaan dib appetite ugu helo, waa appetizer. inaan dib ugu helo shahiya, yacni dib inaan u isticmaali karo haddana mar kale, ama wax akhriska ama waxqabad kale. walidaalika waxaan leenahay dhibtu wuxuu ka yimi waktigii baan lahayn programmed. waktiga xisaabso oo program u samee, oo ha noqdo ra-sumaalka. maanta haddaad waxoogaa lacag intaad soo hesho ay suuqa kaaga soo lunto ka waran, madaxaad maanta o dhan isqaban lahay. aniyow 5,000 oo shilin oo 5,000 oo karawno aan maanta bangiga kala soo baxay, ayuu maalka markaa marayay 5 dumaasiri ku rido jeebkaan la waayay. waad murugaysantay. 5,000 oo karawno imise saacadood baa lagu shaqeeyaa. haddaynu idhaahno miskiin baad ahayd oo 100 karawnaad ku shaqaynaysa, imisay noqonaysaa? ya 50 saacadood. 50 saacadood waa imise maalmood? ya waa 2 maalmood ba 48 saacadood ah. 2 maalmood haddaad iska boodboodo hurdo aad waxbaba qabanin, inaad wax khasaartay ma moodeysaa? marka lacagta loo bedelo haddaa maxaad u moodeysaa inaad wax khasaartay?
labadan maalmood iyo 5 kun baa markaad halkan joogto isku qiimo ah 48 saacadood iyo 5 kun waa isku qiimo markaad 48 saacadood intaad shaqo ku soo qabatay aad lacag ku soo qaadatay way kula buuratay 5 kun bay kuugu muuqatay 48 saacadood aad soo shaqaysay 5 kun karoonay noqday lacag buuran bay kula tay lacagtaasi inay lunto waa calaysa laakiin 48 saacadood baa adigoo meel iska fadhiya inay dhamaadaan uma aragtid in wax ka lumay waxaan taa uga jeedaa waqtiga inaad dareentaan waliba waqtiga dhalinyarada tii waa waqtigaad wax weyn qaban karto markaad konton jir soo gaadho waqtigaaga waxaad ka dhalin kartaa uu iska yari waqtigaaga kaliya ma lihido dad baa kula leh awowbaad noqonaysaa caruur baa kula loo kuwada awow ahayd baa kula loo reero oo xidhiidh oo dadan oo kumaan qof baa kula wadaaga saacadahan yaraad haysa laakiin marka dhalinyarada ta cidina kulama laha adaa iska wada wata waqtigaaga caruurna kaama daba ooyeyso cid kalena kuguma mashquul ahaa adaa waqtigaaga leh adigay tahay inaad isticmaasho idan firaaqadu dhalinyaranimada firaaqadeedu waa waxaan dib loo soo helaynin waa waxay gabayada iyo udabadu intay qayliyaan layta shabaaba yacuudu yowman faakbirhu bima facala almushiibu ay ku gabyaan waryaa dhallinyaranimadii maalinuu soo celiya da-i waxay badayaan uga sheekeeya buu leeyahy waxaan idin leeyahay markaa firaaqa waktiga ka faa'iideeya